doorashadii la asteeyey ee deegaanka Garbaharey loo asteeyey hadal iyo la geliyay khilaafaadaan macno lahayn arrinkaas dhamaystirkiisa iyo soo afjaristiisaanu maanta u nimid waxaan rajaynayaa dhammaan qof kastoo ay khusayso ee mas'uuliyad uun si ugu magacaaban dawladda Soomaaliya taariikh baa qormaysa taariikhduna ma naxdo mana hilmaanto nin walba diiwaanka waxa uu gashada bay u kaydisaa maalin maalmaha la ka mid unbay ayadoo socoto soo gaaraysa waxaan rajaynayaa in halkan ay ka dhacdo doorasho wanaagsan oo nabadgelyo ilaahay idinkii noogu dhammaato oo si sharaf leh oo waafaqsan heshiisyadii dhammaan mas'uuliyiinta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee qaybahooda kala duwan oo dhan la isla afkartay ee lagu heshiiyey laguna asteeyey si sharci halkan inay si nabadgelyo leh oo qurux badan noogu qabsoontaan rajaynaynaa waxaan aad iyo aad runtii uga xumahay maamul fadhiida oo Kismaayo yaalla oo aad aragtoon mar alla markii la yiraahdo doorasho jirta ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed ha noqoto Jubbaland markaas baa la arkaa asagoo si aan la aqoon u shaqeynaya waxa la yaabay markaan maqlay waxa doorashadii la geenayaa oo maamulkii yiri waxa doorashada la geenayaa magaalada Ceelwaaq aad baan uga xumaaday bal hadda Ceelwaaq waxaan jeclaan lahaa wariyaasha iyo dadka deegaanku kaamirada inay la soo dhaxmaraan 10 iyo dhowr sano kadib oo maamulka uu jiray Ceelwaaq isha ay leedahay sida u taalo waa fariin cad oo ku filan maamulkaas nooca uu yahay iyo doorasho in loo asteyn karayo in kale waxaan runtii halkan salaan uga dirayaa guud ahaan dadka shacabka reer Jubbaland gaar ahaan dadka reer Ceelwaaq waxaan leeyahay iyo reer Garbaharey iyo dhammaan waxaan halkan salaan uga dirayaa salaam runtii oo leeyahay reer Ceelwaaqow doorasho un ma aha noloshu aan waliba khaldan oo si khaldan loo soo abaabulay in la soo aado noloshu dawladnimadu waa maamul waa hogaamin waa turxaan bixin waa dhisid dadka iyo adeegooda iyo noloshooda iyo horumarintooda weeye intiiba haddaanay jirin Ceelwaaq baan doorasho ku qabanaya waxaan u aqaanaa gabay deelqaafa kaas halkaasaan ku xiray waxaan rabaa inaan halkan salaan uga diro ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaare waa salaaman tahay dhammaantay waa ku salaamaynaa magaalada Garbaharey waa tii aad timid sida wanaagsan ee sharaftii milgaha lagu soo dhaweeyay adiguna aad dhaxbariday warbixin dheer aad adigu afkaaga uga diyaarisay waa record kaydkay kugu jirtaa taariikhda waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaarow mas'uuliyad baad haysaa qaran muxaafid iyo mucaarad intaba inaad dhaxda u taalla ayaa laga rabaa waxaan aad iyo aad nin dhalinyaro oo mustaqbal ah tahay dhiiqayaan lugaha lagu galin ma sha Allah yaan mustaqbalkaagu waa dheer yahay cumrigaaga haddii ilaahay daayo 50 sano 20 sano waa joogi doontaa yaan lugaha dhiiqa lagu galin yaan awoodii iyo mas'uuliyadii aad Soomaaliya dhaxtaalka ugu tahay prime ministerka ugu tahay dhinac yaan laga rarin dhinacayaan laga rarin taladan ku soo jeedinay waxa weeye waa la iska heshiirayaa Soomaaliya wadad walaala wax weyn oo dhibaato ma jiro aragtida lagu kala duwan yahay hardankan iyo waa doorasho calaamadaheed waa laga heshiin doonaa maalinta la heshiiyo ee waxaan ay dhamaadaan Mr Prime Minister maalintaas wixii aad qoratay ayuun bay dadku kula imaanayaan aad u akhrisanaysaa waxaan rajaynayaa wax quman inaad qorato